وزيرka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland Cabdullaahi Maxamed Xasan oo maalmaha ku sugnaa magaalada Nacayb ee gobolka Sanaag ayaa saaka waxa uu boqday saldhigga ciidanka daraawiishta aagga Sanaag ee saldhigdani ee magaalada Nacayb cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta aagga Sanaag ee saldhigdani ayuu wuxuu ka qaatay wasiirku Salaan Sharaf waxaana wasiirka uga warbixiyay xaaladaha ciidanka degmada Nacayb ee gobolka Sanaag taliye gaashaan la dhexe Mustafa Siciitor halka wasiirku ku amaanay waxqabadka ay u hayaan dalkooda iyo diintooda iyo waliba ciidooda iyo sida ay markaasi xaalafunta deegaanka ay uga hortaagan yihiin magaalada Nacayb iyo nawaaxigeeda kii ugu horeysay ee wasiirka wasaaradda waxbarashada dowladda Puntland uu soo gaaro magaalada Nacayb tiraba dhowr jeer ayuu ku soo noqnoqday magaalada Nacayb wasiirka imaashiisa haatan uu yimi magaalada Nacayb ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland uu haatan wasiirka uu ka yahay ay isku dartay dugsiyadii sare ee magaalada Nacayb ee la kala oran jiray Faaracadde iyo Najax halka ardaydii lagu mideeyay dugsiga sare ee Faaracadde School dugsiga Najaxna haatan uu yahay dugsi hoose dhexe waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Nacayb ee gobolka Sanaag